inaan ka hadalnimayo oo horta dadku ayagoo walaalo ah ayagoo asxaab ah iyo nin inaagtiisaba isku dhacaan waxa waa laga heshiiyaa aniga Saalmi Kiskey walaalkayga qaali u ahaa mar saaxiibkay u ahaa dad wada shaqeyn iyo horumar oo ka dhaxeeyaan ahayn hoogaa dad baan naga dhex shaqeeyay ama dhaxdaasa waxbaa dhacay adiga wixii isku soo dhamaadeen aniga walaalkay heshiisanahay video naaka ka dareemayso ama hadalkiisa ka dareemayso in ay Saalmi Kiskey iyo isiga ay heshiiyeen marka laakiin arintaas ay ka dambeeyay Daahir Cali Sow ninkaas la dhaho oo arintaas ka dambeeyay in oo labadooda dhaxgalo oo baalkii labadooda oo ka dhex shaqeeyo sababta ay YouTube-ka Sharmabo hawada looga saaro in uu ka dambeeyay saameyn fara badan oo ku lahaa Saalmi Kiskey YouTuberkaas oo cameraman oo ahaa cameraman-keeda uu qaaska Sharmabo oo muuqaalada ka duubo ama muuqaalada YouTube-kiisa soo galiyo oo kamid ahaa marka Daahir Cali Sow wuxuu ku dhaqaaqay in oo labadooda ka dhex shaqeeyo oo Saalmi Kiskey dhankiisa u soo maro si uu wuxuu rabo ama danta uu ka leeyahay markaas fanaan Sharmabo oo ka gaaro wuuna ka gaaray oo wuxuu rabay wuu sameeyay markaas marka Daahir Cali Sow markii YouTube-ka hawada ka saaro ama heesay fara badan ilaa 3 heesood oo cooperate ku qabto ama YouTube-kaas oo gacanta ku dhigo waxa saameyn fara badan ama gacan weyn ka siiyay Saalmi Kiskey marka hadda arintu way soo gabgooday oo sida Sharmabo ku sheegay ama sida codka hore oo bilowga u dhageysatay oo leeyahay waan heshiinay oo hadda arintu waa meel fiican waxay noo marayaan marka labadan qof waa laba qofood oo iskaga soo bilaabo meel heer hoosada ah maanta waa laba qofood oo heer aad iyo aad u sareeyo taagan marka waa arin aad loogu farxo 100% oo la dhihi karo waa arin soo dhaweyn leh oo arin aad iyo aad loo soo dhaweyn karo marka sababtu tahay hadii labada qof oo marka hore dagaal ama wax ka dhex qarxay oo hadalay markii dambe ay heshiiyaan waa arin aad iyo aad la dhihi karo waa arin 100% fiican waana laba qofood oo aad iyo aad iskugu baahan ama laba qofood waxa waaye 100% gacan ama garab weyn isoo siiyay ama saameyn fara badan ku lahaa baraha bulshada marka waxa dhigi karnaa arintaas waa arin aad iyo aad loogu farxo ama taageerayaasha fanaankan ama cameraman-kaas dhigi karo taageerayaashiisa way ku farxi karaan ama Soomaaliya idil baa ku farxi karto 100% marka heesta dambe hadda soo baxday heestaas oo ah Puntland xitaa cameraman-ku wuxuu ahaa Saalmi Kiskey si aad ku aragto oo muuqaalka quality-giisa u duubay sababtoo tahay isiga waa nin cameraman oo aad iyo aad muuqaalada aad iyo aad u duubi yaqaano waqti fara badan oo ku dhex jiray ama sababtoo tahay waxaana wixii walba waqti geliso ama waxa aad saacado fara badan ku jirto ama sanado fara badan ku jirto waa ka mir dhali kartaa ama mirooyin nabahan ka bixi kartaa sababtoo tahay wax walba lagu dadaalo mar baa laga mira dhalshaa wana ka mira dhashay wuxuu leeyahay YouTube aad iyo aad u saameyn dhanka YouTube-ka baraha bulshada saameynta leh ku jira marka waxa dhigi karnaa si qofkii arkay muuqaalkaas uu ku farxi karaa qaabka u duubay marka kuma sintiin daawashada muuqaalkan fadlan daan ugu subtanaa